waa 29 bisha Abriil sanadka 2024. qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah wafdiga ka socda Xamaas ee maanta tagaya magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, wadahadaladii oo dib loo bilaabayo, rajada ay qabaan dhinacyada Israa'iil iyo Xamaas miyay aqbali doontaa soo jeedinta dhinaca wadahadalka ee Israa'iil. sidoo kale wafdiga tagaya magaalada Dooxo caasimadda dalka ee Qatar ah ayaan ogaan doonaa askartii ugu badneed oo Israa'iil looga dilay magaalada Gaza, weerarka ay qaadeen guutada Ciisadiin al-Qassam, diyaaradaha dagaalka oo la arkay iyaga oo dhaawacyo badan daabulaya, socdaalka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu ku tagay magaalada caasimadda ah dalka Sacuudiga. waa maxay cabsida ay dareemayaan Israa'iiliyiinta iyo madaxweynaha Falastiin? labada arrin ay labadoodaba ka kala baqanayaan ayaan eegi doonaa, iyo macluumaad ku saabsan Israa'iil ma waxaa kasii yaraanaya noocyadii kala duwanaa ee hubka oo ay ka heli jireen qaar ka mid a dowladaha gobolka. arrimahaas oo idil ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socda insha Allah. soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeenna, aad baad u mahadsan tahay. qodobada kale aan eegi doono waxaa ka mid ah duqa magaalada Istanbul oo la sheegay in uu kasoo horjeestay weerarkii xoogagga iska caabinta Falastiiniyiinta ay ku qaadeen Israa'iil 7 Oktoobar. qodobadaas iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socda insha Allah. soo dhawaada mar kale ka mid noqo saaxiibadeenna, aad baad u mahadsan tahay. mar kale isku soo noqod wanaagsan, waxaan ku hormari doonaa arrimaha ku saabsan wadahadalada. wafdi ka socda xoogagga iska caabinta ee Falastiiniyiinta ayaa maanta gelinka dambe waxa qorshuhu yahay inay tagaan magaalada Qaahira oo caasimadda dalka Masar ah. ujeedada ay u tagayaan magaalada Qaahira wafdigan waxay tahay in ay qayb ay ka noqdaan dooda la xiriirta qorshaha lagu sii deynayo maxaabiista, dagaalkana lagu soo gabagabeynayo, iyo jawaabtii ka timid dhinaca iyo Israa'iil. dowladaha Masar iyo Qatar ayaa waxay bixinayaan dadaalka ugu badan, dadaalkaas oo la doonayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalka. inkastoo dowladda Qatar ay marar badan wax tabanaysay, haddana waxay hadda xoogga saarayaan oo Mareykanka iyo dowladihii kaleba ay ka dalbadeen in arrintan aysan ka lug bixin. xitaa Xamaas ayaa ku qanacsan in dowladda Qatar qayb ay ka noqoto qorshaha maxaabiista la isku dhaafsanayo, dagaalkana lagu soo gabagabeynayo. sida ay baahiyeen wakaaladda wararka ee Reuters iyo telefishinka Al Jazeera, mas-uuliyiin ka tirsan xoogagga iska caabinta ayaa waxa ay la hadleen wakaaladda wararka ee Reuters. inkastoo magacooda aanan la sheegin, haddana waxay sheegeen wafdigan in ay tegayaan magaalooyinka Dooxa iyo sidoo kale Qaahira oo ah dowladaha Qatar iyo Masar, waxayna door weyn ay ka ciyaarayaan qorshaha dhexdhexaadinta, iyaga oo la doonayo maanta inay si xoogan ay kaga hadlaan aragtidii ama soo jeedintii ka timid dhinaca Israa'iil ee ku saabsan hanaanka maxaabiista la isku dhaafsan karo. hoggaankan macluumaad kale ma aysan sheegin, waa xubnaha ka tirsan Xamaas oo la hadlay telefishinka Al Jazeera iyo wakaaladda wararka ee Reuters. laakiin wararka soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in suuragal ay tahay Xamaas inay hadda ogolaatay qodobada ay soo jeedisay Israa'iil. ilaa iyo maalintii Sabtidana Israa'iiliyiinta waxay soo bandhigayeen sida maxaabiista la isku dhaafsan karo. wararku waxay intaasi ku darayaan in Israa'iil xitaa hadda ay ogoshahay in la sii daayo ilaa 40 maxaabiis ah oo lagu bedelanayo maxaabiis kale oo Falastiiniyiin ah oo xabsiyada Israa'iil ku jira. waa wejiga koowaad. wejiga labaadna waxa uu ogolaanayaa in laga wada hadlo xabad joojin rasmi ah iyo sidii xaaladda looga dhigi lahaa mid nabdoon, iyadoo oo Israa'iiliyiinta ay ka jawaabayaan dalabaadkii ka yimid dhinaca iyo Xamaas. markaad eegto Xamaas waxay hore u dalbadeen in wejiga koowaad xabad joojinta dhinaca Israa'iil marka la eego inay ogolaadaan in dhaqdhaqaaqa dadweynaha xor laga dhigo oo koonfurta iyo waqooyiga meel kasta isaga kala gudbi karaan, in ciidamada Israa'iil ay isaga baxaan magaalada Gaza, iyo in dadka loo ogolaado dib u dhiska magaaladan oo ay burburiyeen ciidamada iyo diyaaradaha dagaalka Israa'iil. Xamaas hore ayay arrintaasi u soo dalbatay. wejiga xigana wuxuu noqon karayaa suuragalnimada in Israa'iil arrimahaasi aqbasho. marka la eego marka siday wax u socdaan, dhinacyadan muddooyinkii ugu dambeeyay way isku adkeynayeen, oo markii dhinaca Xamaas ay soo jeedin sameeyeen Israa'iil ayaa ka hor imaanaysay, dhinaca Israa'iil markay soo jeedin sameysana dhinaca Xamaas ayaa ka hor imaanay. laakiin hadda waxay qobaradu leeyihiin sheekadu sidaas way ka duwan tahay. ugu yaraanna waxaa suuragal ah dhinacyadan inay isku fahmaan wadahadalkan, oo haddii wadahadaladan la isku fahmin mar kale xaaladdu ay aad u adkaan karayso. inkastoo Israa'iil iyo hogaankooda ay doonayaan inay weeraraan magaalada Rafah,
haddana haddii rafax la weeraro sheekada dib u dhac weyn ayay keeni doontaa. xamaas maalintii sabtida ayay yidhaahdeen wixii ka yimid israa'iil waan daraasaynaynaa, hal qof go-aan ma qaadan karo, markaan daraasayno kadib ayaanan jawaabteena bannaanka keeni doonaa. waan arkaynaa waxa ay yidhaahdaan maanta hoggaanka xamaas ee tegaya magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar. dhinaca kale ciidan aad u tiro badan oo israa'iiliyiin ah ayaa qaarkoodna laga dhigay kuwa la dilay kuwana la dhaawacay. sheekadan waxay ka dambeysay kadib markii weerar gaadmo ah ee xoogaga iska caabinta ee falastiiniyiinta ay ka fuliyeen mid ka mid a xarumaha ugu muhiimsan ee ciidamada israa'iil ay ku lahaayeen magaalada ghaza. sida telefishinka aljazeera uu baahinayo qaar ka mid a ciidankii israa'iil ayaa dhintay, in ka badan 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qaraxyo, hoobiyaal iyo weerar gaadmo ahaa lagu qaaday xarumo ay ciidamada israa'iil ay ku lahaayeen magaalada ghaza. gootada ciisediin al-qasaam garabka militari ee dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa arrintan xaqiijiyey. waxay yidhaahdeen marka hore xarunta lagu magacaabo netzarim oo ah xarun ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada ghaza ayaan weerarnay. waxay sheegeen halkaas inay ku weerareen hoobiyaal. waxay ahayd xarun weyn oo ciidamada israa'iil ay lahaayeen. waxayna sheegeen in khasaaraha hoobiyaasha ka dhashay la arkayay ciidan aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa israa'iil oo dhaawacyo ah. diyaaradaha dagaalka F-16 ayay markii dambe ku qasbanaadeen ciidamadii israa'iil inay kiciyaan. waxa la arkayay diyaarado kale oo dhaawacyo daabulaya. xamaas marka muuqaaladii ayayba soo bandhigeen oo caddaynta ah. sidoo kale waxay soo bandhigeen dhismayaal ciidamada israa'iil ay ku sugnaayeen iyaga oo qoryaha shiishkanta saartay qaarkood dilaya. guutada waxaa kaloo intaasay ku dareen in miino dhulka lagu aasay ay la eegteen ciidamo ka tirsan kuwa israa'iil gawaari ay la socdeen. miinadan waxaa lagu aasay wadada lagu magacaabo al-sika. waxay ku taallaa deegaanka muqraaqa oo dhaca bartamaha magaalada ghaza. miinadii dhulka loogu sii diyaariyey waa loo aasay. markii halkaas ay yimaadeenna kadib rimuudkii ayaa loo taabtay. marka weerarkan waxa uu noqonayaa marka 3 qayb ayuu noqonayaa, midka miinada, kan hoobiyaasha iyo midka kale ee gaadmada ah oo lagu qaaday fariisin weyn oo ciidamada israa'iil ay ku lahaayeen koonfurta magaalada ghaza. sidoo kale guutada al-qudus garabka islaamic jihad dhankooda waxay baahiyeen muuqaalkaas oo ay ku muujinayaan dhismayaal kala duwan oo magaalada ghaza ka tirsan oo ay ciidamada israa'iil ku bartilmaameysanayaan iyagoo isticmaalaya qoryaha shiishka, gaar ahaan deegaanka al-fajah lagu magacaabo. deegaankanina wuxuu dhacaa dhinaca bari ee magaalada ghaza. marka waxay yidhaahdeen xarumahaasi kala duwan ayaan ku bartilmaameysanay ciidamada israa'iil. dhinaca kalena maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu gaaray magaalada caasimadda ah dalka Sacuudiga. waxaana socdaalkan sida la sheegay uu noqonayaa socdaal kale oo ku tagayo wadamo qaar oo ku yaala bariga dhexe. ninkan aad buu ugu soo laalaabanayaa bariga dhexe tani markii dagaalka uu bilowday 7 Oktoobar. ujeedada socdaalkiisa maanta marka waxaa wakaaladaha wararka ay ku sheegeen in qayb uu ka yahay inuu wadamada carabta uu kala hadlo dagaalka magaalada ghaza ka soconaya kadib iyo sida xaalka uu noqon doono. wuxuuna ugu dambeyn la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si uu ula wadaago wax walba oo uu kala soo kulmay dowladaha carabta, sidoo kalena uu kaga dhaadhiciyo barnaamijka gargaarka bini'aadanimo lagu gaarsiinayo marinka ghaza. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxaa la filayaa inuu la kulmo hoggaanka dowlado dhowr ah sida dowladaha Sacuudiga, Qatar, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Jordan. inkastoo socdaalkiisaas uusan ahayn kii ugu horreeyay oo dhowr jeer wadamadan uu tagay, haddana mar walba oo gobolka uu yimaado ninkan waxaa soo baxa macluumaad kale. waxaana suuragal ah in dowladahan lagu cadaadinayo aqbalitaanka dagaalka magaalada ghaza kadib sida xaalka uu noqon doono, inkastoo ay aad uga soo horjeedaan in ciidamo dowladahani ka socdo nabad ilaalin ahaan loo geeyo magaalada ghaza. waana taas waxa Mareykanka uu ka shaqaynayo. sidoo kale dowladaha qaar waxayba shuruud ka dhigayaan sida Sacuudiga oo kale in magaalada ghaza dagaalka ka socdo la soo gabagabeeyo, iyaga magaalada dib u dhis ay ku sameyn doonaan. sidoo kalena Sacuudiga waxa laga doonayaaba inuu heshiis la gaaro Israa'iil. Sacuudiyaankana arrintaasi shuruudo kale oo badan ayaa uga yaala. waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordhay insha Allah. barnaamijyadeena kale ayaana kugula wadaagi doonaa. aad baad umahadsantahay like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada. dhinaca kale waxaan eegaynaa markaa macluumaadyada soo haray. duqa magaalada Istanbul Ikram Imam Oglo ayaa waxaa wargeyska lagu magacaabo Arabic Post uu baahiyey
macluumaad ku saabsan isaga oo aad uga xun weerarkii ay qaadeen xoogagga iska caabinta ee falastiiniyiinta. wargeyskan wuxuu soo xiganayaa marka muuqaal lagu baahiyey telefishinka CNN ee dalka Mareykanka, waxaana hadalkiisu inkastoo uu yahay mid kooban uu muujinayaa sida aragti ahaan uu kaga falceliyey wixii dhacay 7 Oktoobar. wuxuu leeyahay weerarkan ay qaadeen xoogagga iska caabinta falastiiniyiinta ee Xamaas oo ah weerarka loogu magac daray duufaanta Al-Aqsa aad buu annaga inoo xanuujiyey. sidaa daraadeed dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta waxa uu ku qeexay sida urur argagixiso oo kale. arrintan waxay imaanaysaa iyadoo oo laga sii daayo muuqaalkan telefishinka Mareykanka laga leeyahay CNN, waxaana macluumaadkan la baahiyey xalay, weliba codkan Ikram Imam Oglo waana mid si weyn looga wada hadalhayo baraha bulshada. wuxuu hadalkiisa ku sii daray, waxaan arrintan u tixgelinaynaa in dad shacab ah oo aan waxba galabsan la bartilmaameysado sida inay fuliyeen howlgalkaasi urur argagixiso oo kale. laakiin warbaahinta Israa'iil iyo kuwa kale ee reer galbeedka ayaa si weyn ninkan u falanqeynaya maadaama uu yahay nin mucaaradka ka mid ah kuna guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee Turkiga ka dhacday, noqdayna duqa magaalada Istanbul 5 sano ee soo socota, waana markiisii labaad. laakiin codkan ama macluumaadkan ninkan laga sii daayay ee sidaas arrintan uu kaga hadlayo telefishinka CNN waqtiga rasmiga ah ee wareysiga ninkan uu siiyey ma aysan baahin. ma shalayba, ma xalayba, ma sanado ka horba ma uusan baahin. laakiin waxay sheekada kusoo beegmaysaa maalmo un kadib markii Ismaaciil Haniya madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas uu soo gaaray dalkani Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dalkani Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. labadoodaba arrimo dhowr ayay ka wada hadleen. Erdogan iyo Ismaaciil Haniya aad bay isugu fiican yihiin. ninka Erdoganana waa nin aad isugu dhow yihiin xubnaha iqwaanka ah, inkastoo Ikram Imam Oglo inta badan lagu tiriyay inuu yahay dadka u xaqliya arrimaha cilmaaniyadda, sidoo kalena xoogga ma saaro arrimaha islaamka ama sunniyiinta. dhinaca kale markaad eegto waxaa jirta cabsi weyn oo haysata madaxweynaha falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas iyo mas'uuliyiinta Israa'iil. labada cabsi maxay tahay? madaxweynaha falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas wuxuu aad kaga baqanayaa dagaalka magaalada Gaza kadib in magaalada Ramallah iyo magaalooyin kale oo dhinaca daanta galbeed ah sida Gaza oo kale inay noqon karaan oo halkaasi la weerari karayo. maxaa yeelay dadka hadda xoogga lagu dejiyey deegaanadii ay lahaayeen dadka shacabka ee falastiiniyiinta waxay bilaabeen inay weeraro ay ka fuliyaan dhinaca daanta galbeed iyo magaalooyinka ku xiran. Maxamuud Cabbaas madaxweynaha Falastiin waxyaabaha uu ka baqanaya marka waxaa ka mid ah in dadka daanta galbeed degan lagu qasbo in dhinaca iyo Jordan loo raro. markii hore bilowgii dagaalka waxaa jira 2 qorsho oo dadka ku sugan magaalada Gaza waxaa la filayay in loo rarayo dhinaca iyo Masar, laakiin masaaridii ayaaba arrintaas aad uga soo horjeestay. reer Jordanna sidaas oo kale waxaa loo qorsheeyay kuwa daanta galbeed degan inta la riixo halkaas la geeyo, inkastoo ayagana reer Jordan ay ka soo horjeesteen. hadda marka Cabbaas wuxuu taagan yahay sheekada magaalada Gaza markay soo idlaatay kadib waxaa suuragal ah in annaga nagala soo jeesto. ninkan muddo badan ayuu hayaa xilka madaxtinimada ee falastiiniyiinta, welina isaga ayaa hoggaanka sare ah. sidoo kale Israa'iiliyiinta waxyaabo ay ka baqanayaan waxaa ugu horeeya go'aanka maxkamadda dambiyada dagaalka oo suuragal ay tahay in hoggaan badan lasoo amro ama lasoo saaro warqadda lagu soo xirayo. Netanyahu iyo xafiiskiisa arrintaasi aad bay uga walwalsan yihiin. dhinaca kale wargeys ka soo baxa dalka Francisco Le Monde lagu magacaabo waxa uu leeyahay xukuumadda Paris waxay hoose u dhigtay hubkii ay u iibgeyn jirtay Israa'iil tani dagaalka markii uu bilowday, oo Faransiiska iyo Israa'iil aad isugu wanaagsaneen. waxyaabo badan ayaa la isku qabtay oo ay ka mid tahay danta Faransiiska ee magaalada Gaza ama gobolka guud ahaan marka laga hadlayo. wargeyskan ayaa sida baahiyay maalintii shalay oo Axad ahayd, waxaana uu leeyahay Faransiiska hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa hubkii uu ka iibin jiray Israa'iil tani dagaalka markii uu bilowday. sidaas oo kale dawlado dhowr ah oo reer galbeed ayaa horeyba ugu dhawaaqay inay joojiyeen hubkii ay Israa'iiliyiinta ka iibin jireen, iyadoo ay ugu wacan tahay sida ay sheekada isu bedeshay guud ahaan bariga dhexe marka laga hadlayo tani markii dagaalka uu xoogaystay. xukuumadda Tel Aviv aad bay kaga baqanaysaa maxkamadda dambiyada dagaalka go'aan ay soo saarto, iyada oo mas'uuliyiin dhowr ah suuragal ay tahay in laga soo saaro waaran lagu soo xirayo. sidoo kale xukuumadda Tel Aviv ayaa waxay shaaca ka qaaday inay doonayaan inay ka hortagaan in hoggaankooda laga soo saaro qoraal lagu soo xiri karayo. Israa'iilna 90 daqiiqo ugu dambeeya ayay doonaysaa inay arrintan ay isku daydo.
wargeyska lagu magacaabo Jerusalem Post wuxuu baahinayaa in wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant iyo xubno kale ee suuragal ay tahay in laga soo saaro warqadda lagu soo xirayo iyo taliye ka tirsan ciidamada Israa'iil iyo xubno kale kuwaas oo la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen xasuuqa dad badan oo shacab ah amarkoodiina wax lagu xasuuqay kuwaas oo ku sugan magaalada Gaza oo dhulka Falastiiniyiinta ah. dhinaca kale markaad eegto Israa'iil diyaaradaheeda dagaalka weli waxay duqeynayaan magaalada Gaza waxaana weli cabsi weyn loo abuurayaa dadka shacabka ee ku nool dhinaca iyo Rafah maadaama Israa'iiliyiinta ay ku adkeysanayaan inay weerar ku qaadayaan magaalada Rafah. wax walba oo arrimahan ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah. aad baad u mahadsan tahay falanqaynta lamida intaan ku kulmi doono nabadgelyo.